وسؤال مهم شكلها وجرا تهننا way jiraan kiisasna way dhaceen oo ah in nidaamkan xawaaladaha Soomaalidu ay ka faa'iideysteen dad ka shaqeeya arrimo kale gaar ahaan arrimahan daroogada oo kale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد برنامج كنا مالمها دريدة أو ستوسن كجيمانية استوديو هنا كلنا هاي مقالة لندن تطبعت كان برنامج كوحا مارتين وقاه سعيد محمود موسى oo qadka si toos ugu jira isagoo jooga magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway Saciid aqoontiisu waa xagga masterka oo waliba uu ku qalin jabiyay business school ama xagga ganacsiga waxa uu sidoo kale consultancy ama shaqada ahaan uu yahay xagga shirkadda xisaabaadka Deloitte kamid ah asaasayaashii ama asaasaha warbaahinta Noso Media warbaahinta ugu weyn ee Soomaalida waddanka Norway isla markaana sidoo kale madaxa hay'adda Somali Norwegian Strategic Partners ee magaceeda loo soo gaabiyo SNSP سعيد يا بدو ما حسنتها وينو كاغا مهد علينا وقتيغا قاليغا سيداد مشغول تahay nago og ku soo dhaw barnaamijka maalmaha dunida محمد سعيد أصحاب في بعض Somali Global Somali TV واد mahadsantihiin aad baad ugu mahadsantahay fursadan iyo wareysigan waxaan mahayna saleeli weyn inta Norway joogto intii aad jaaliyada Soomaalida Norway barnaamijyada ka diyaarineyseen marka waan ku faraxsanahay mar kale saarno aanan barnaamijkan maanta aad martiin kugu noqdo adiga iyo بعض صاحبة كلي سومالي Global Somali TV سعيد aad baad u baahantahay waxaanu dooranay mid kamid ah mowduucyada saameynta ballaaran ku leh nolosha bulshada Soomaalida ee haatan ku nool waddanka joogtid ee Norway waxa jirta caqabado ba'an oo baahsan oo ballaaran oo ay wajahayaan ganacsatada Soomaalida ee xawaaladaha kula gudaha waddanka Norway xawaaladahaas oo aan ognahay saameynta ay ku yeelanayso dadkii lacagaha dirayay iyo dadkii loo dirayay lacagaha ay qaraabadii iyo eheladii dalkii gudihiisa joogtay oo aan ognahay muhiimadda ay u leedahay in dhaqaalahaas iyo lacagahaas loo diro ee xawaaladaha loo marsiyo ay bil walba gaarto waxa tahay shakhsi saameyn ku dhaxla bulshada Soomaalida Norway wax badan la socda hay'ada la shaqeeya warbaahintii la shaqeeya xisaabiye fikir guud iyo mid gaar ahaaneed ka haysta caqabadaha guud iyo kuwa gaar ahaaneed ee ay hortaagan shirkadaha xawaaladaha marka daawadaashana waxaan jecelahay inaan fahamsiino maxay tahay caqabadahan hortaagan shirkadaha xawaaladaha Soomaalida ee waddanka Norway waxaad markale waa mahadsantahay horta guud ahaan waxaan rabaa intaan barnaamijka bilaabin inaan xaqiijino ama aan hordhac ahaan ka dhigano arrintan caqabadaha xawaaladaha Soomaalida Norway iyo Scandinavianka waa arrin muddo soo socotay issue hadda degdeg oo taagan ama dhacdo weyn oo maalmahan dhacday ma jirto laakiin waa caqabad muddo sanadaha soo socotay xawaaladuhu waxay ka mid yihiin ganacsiyada ugu waaweyn ee Soomaalidu ay halkan ku leeyihiin ay maamulaan marka loo fiiriyo lacagaha ay sameeyaan oo income-kooda iyo lacagaha ay waddanka ka diraan Norway waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee Europe markii la fiiriyo lacagaha Soomaaliya loo diro Soomaalida halkan ku nool waxa lagu qiyaasaa 45,000 lacagta sanadkii dirnana waxay u dhowdahay 70 milyan oo dollarka Mareykanka markaad 45,000 u qaybiso 70 milyan oo dareemaysaa in lacag badan ay Soomaalidu halkan ka diraan lacagahaas intooda badan waxaa la marin jiray xawaaladuhuna mudday soo socdeen oo 40 sano ay Soomaalidu Norway degan tahay xawaaladuhuna way jireen laakiin wixii ka dambeeyay 2001 oo ay soo baxeen sharciyadan ka hortagga maalgelinta argagixisada waxaa markaa soo badanayay caqabadaha ay Soomaalidu ama xawaaladuhu la kulmaan maalinba heer bay joogeen maalinba kuwa cusub baa soo kordhayay laakiin wixii 15 12 ka dambeeyay waxaad moodaa xawaaladaha focus gaar ah in la saaray oo aad moodo maadaama la arkay lacagta tirada badan ee waddanka ka saarayaan sanadkii regulation gaar oo xawaaladaha ku saabsan uusan jirin waxaad moodaa hay'adaha ilaalinta maaliyadda ama hay'adaha maaliyadda waddamadani Scandinavia gaar ahaan Norway focus xoog lay saareen baaritaanay u direen
in badan bay isku dayeen inay fahmaan si ay u shaqayso kadib markay fahmeenna waxay isku dayeen qaabkii ay oga dhigi lahaayeen sida bangiyada caadi oo kale laakiin tiina waa suurtagal weyday oo dee waddanka wax loo dirayo kama jiraan nidaam bangi oo shaqeeya oo integrated ku ah nidaamka maaliyadda caalamka marka aad bay ugu wareersanaayeen bilowgii master tiro badan baa laga qoray PhD yaa laga qoray welina waxay moodaa way ku rafanayaan laakiin caqabadda ugu weyn waxay tahay waa labo kow dowladdii oo rabto inay fahanto in lacagtan la dirayaa ay qofkan dirayo iyo hay-adda diraysa iyo xawaalad diraysaba ay sifa sharciga kusoo gashay iyo labo qofka loo dirayo ama meesha loo dirayo la rabo in la xaqiijiyo tan koowaad way fududahay in la xaqiijiyo qofku markuu lacag badan dirsanayo oo kale waxaa la weydiiyaa inuu keeno income statementiga meeshay kasoo gashay lacagtan ama ha noqoto mushaarkiisa sanadkaas ama lacag kale oo kaalmo dhaqaalaha laakiin midda dhib badan baa waxay tahay in la xaqiijiyo qofkan lacagta loo dirayo iyo meeshay ku dhammaanayso oo qofkan Soomaaliya joogo qof caddayn kara ma lahan ID ahaan iyo identity ahaanba inuu yahay qof saxa oo jiro iyo qof aan gacan qaldan ahayn ama hay-ad argixisay ahayn ama hay-ad kale ahayn marka labada caqabadoo issaaran baa ugu dhib badan saameynta badan ay ka dhalatay saameynta ugu badanna waxay tahay hadda taagan aan maalmahan in qofku markuu lacag cad xadidan markuu gaaro in la weydiiyo su'aalo tiro badan oo mararka qaarkood loo yeero la yiraahdo lacagtan xageed ka keentay bangiyada laftirkooda inay shaki ka qabaan shirkadaha xawaaladaha oo in hadda waxaa adag Norway iyo Scandinavian-ka inaad ganacsi xawaalad hadaad furanayso ama ganacsi lacag diris hadaad dirsanayso aad waxaa adag inaad bangi hesho ku siiyo xisaab ama konto aad lacagtaada kaga dirsato marka caqabadu waa badan yihiin laakiin mudday soo jiitamayeen laakiin hadda moodaa inay isku soo aruurayaan oo ay hal mar qarxi rabaan oo weynaan rabaan waayahay su'aalo dhowr baa qofku isweydiin karaa markii aad tiri 45 kun ugu badnaan ilaa 50 kun qof oo Soomaaliya ayaa waxay diraan sanadkii lacag 70 milyan iyo ka badan noqon karta lacagta ma Soomaaliya wada dirtaa la is oran karaa mise shaki baa dawladda ay qabtaa in Soomaali kaliya lacagtan aysan dirin oo dad kale ay ka faa'iideystaan xawaaladaha iyagoo isticmaalaya ganacsatada Soomaalida oo su'aal muhiim ah shakiga uu jira tuhunana way jiraan kiisasna way dhaceen oo ah in nidaamkan xawaaladaha Soomaalidu ay ka faa'iideysteen dad ka shaqeeya arrimo kale gaar ahaan arrimahan daroogada oo kale way jiraan kiisas la xiriira arrintaasoo in dad raba inay lacag ay si qaab daran oo ama sifo sharci aan ahayn oo xaaraana kusoo gashay gudaha Norway oo raba inay lacagtii kaash ahaan uga saaraan dalka aysan suurtagal u ahayn lacagtii ayadoo kartoomay iyo boorsooyin ku jirtay ka saaraan inay adeegsadeen nidaamkan xawaaladaha laakiin ma jiro ilaa hadda qof dhihi karo lacagtaas Soomaali ma wada dirto cid kale dirto laakiin tuunkaas wuu jiraa in nidaamkan xawaalada oo ah nidaam gewiisaba ku dhisan kalsooni in laga faa'iideysto way dhacday kiisas way jiraan hal iyo laba maxkamadda tagay laakiin haddaan dhahno lacagta Soomaalida ma wada dirto waxaan u maleynayaa waa waraan la xaqiijin karin laakiin tuunka wuu jiraa tuunka marka wuxuu furay wadooyin fara badan iyo irda fara badan oo ah dawladda inay ku mashquusho ganacsatadii Soomaalida dawladda inay ku mashquusho nidaamkii xawaaladaha dawladda inay ku mashquusho cidda ku lug leh marka Soomaalidu ma isdifaaceen oo ma keeneen sheekooyin ay ku difaacayaan ganacsigooda oo ay leeyihiin shakiga dawladda ku jira ma aha mid jira ama ma aha mid maaragtay hadiiba uu jiro saameyn ba'an oo ballaaran ku leh ganacsigoo dhan dib baan ku celinayaa 2012 wixii ka horreeyay qofku markuu lacag dirayo hadda aniga Siciid halkan fadhiyo ama adiga Maxamed haddaad tiraad maanta lacag dirto ma jirin cid ku weydiin jirtay su'aalo tiro badan laakiin hadda waxaa la sameeyey register gaar ah oo gooni ah oo qof walba oo Norway degan oo raba inuu lacag Soomaaliya ama waddan kale u diro ama dalka dibadiisa u diro laga diiwaan geliyo marka waxa xadidmayo lacagta aad ka diri karto sanadkii haddii ay tahay lacag kugu soo gashay sifa ka khaldan haddii aniga sanadkii ay soo gasho tusaale ahaan 60 kun oo dollar sanadkii aan caadi u shaqaysto oon sanadkii waddanka ka diro 50 kun oo dollar shaki baa imaanaya marka waxaad moodaa in arrintaas ay soo xirxirayso laakiin su'aasha ku saabsan Soomaalidu maxay qabatay Soomaalidu aad bay u dadaashay ganacsatada Soomaalida arrintan ka shaqeeyo bangiyada kulamo la qaateen
waxay isku dayeen inay u yeeraan oo soo dhexgeliyaan ganacsigooda ay tusaan si ay u shaqeeyaan xawaalad kasto ama qof kasto maanta xawaalad Norway kule wuxuu sameeyey 3-4 qof oo shaqaala oo ka shaqeeya ilaalinta nidaamka maaliyadda ee transactionada si loo ilaaliyo in lacag nidaamkan xawaaladaha si fiican si sax looga faa'iideysto haddana saasay tahay weli shaki wuu jira shakigaana ma ahan mid ku ekaanayo hal iyo laba xawaaladood waa mid khuseeyo Soomaalida guud ahaan iyo Soomaaliya waddanka la yiraahdo oo kamid ah wadamada marka laga hadlayo argagixinta maalgelinta argagixisada meelaha ugu xoogan oo yani guduudka kamid ah maxaa kugu daro dawladda kaliya ma wax dhibaatada wado shirkadihii bangiyada shirkadii ilaan qofkan Soomaaliga lacagta diray kaliya lacagta ma dirsan karo inuu nidaam maaliyadeed isticmaalo nidaamkii maaliyadeed baa asagoo dawladii ka cabsanayo buu adiga kugu adkeynaya adoo xitaa laga yaabo inaad wix sax sameynaysid sababtoo ah haddii nidaamka maaliyadeed si khaldan looga faa'iideysto bangiyada waaweyn oo sida bangiga DNB oo kale yiraahdo The Norwegian Bank oo kale waxaa saaran sharci ah inay ilaaliyaan in nidaamkooda aan laga faa'iideysan marka dawladii baa iyadoon la gaarin shirkadihii kale adeegga laga gadanayay maaliyadeed baa caqabad kala oo aad u adkeynaya laakiin ganacsatada Soomaalida dadaal bay wadaan loo yaray qabsadeen kiisas maxkamadeed baa hadda furan oo noo yaalo way u yeeraan oo waxay dhahaan kaalay arka marka qaarkood bandhigyo sameeyaan oo waxay u sameeyaan shir bangiyada iyo dawladda laakiin weli waxaad moodaa in aan weli isla jaan helin waan gartay haddaan dib ugu laabto qoomiyadaha kala duwan ee waddanka ku nool Norway Soomaalida Etoobiyaanka Eritreaanka wadamada kale xawaaladaha iyagu ma isticmaalaan hadday se isticmaalaan si dhibaatooyinka Soomaalida haysta miya iyagana haysta oo wax dadka dhan wada saameynaya mise wax kaliya isha lagu hayo dhankan Soomaalida maadaama Soomaaliya sidaan ognahay kamid tahay wadamada wanted listing ama la doonayo oo isha lagu hayo isla iyo argagixisa degan iyo argagixisa lacag loo diri kara maya wadamada dhibtana lama qabaan hal sabab darteed wadamadaas waxay leeyihiin nidaam bangiyeed oo ku xiran nidaamka maaliyadda caalamka Eritrea ha noqoto Ethiopia ha noqoto Pakistan ha noqoto wadamadaas kale oo caalamka ee jaaridaha tirada badan ee Norway ama Europe degan lacagaha loo diro qofka konti lacagta ku dhacaysa Oslo ka diray waxaan u diray Ethiopia kontan ku ridaya bangi leeyahay oo bangigaana qofka qaadanaya waa la yaqaanaa hebel marka dhibtan caqabada guud oo inala wadaagan way jirtaa laakiin arintan xawaaladaha ama fokuska gaarka xawaaladaha la saaray waa annaga iyo dadkan ka yimaada Afghanistan oo ayagana nidaamkooda maaliyadeed hadda intii Taliban qabtay kadib ugu soo rogay caqabada kale lagu rogay laakiin intooda badan mainliga waa annaga dalal yar baan soo wajaho kamid tahay Afghanistan iyo Syria qaybta ay haysteen nimankan Daesh-ka waayadii hore laakiin inta caqabada ugu badan Soomaalida mar walba haysatay waaye sidaan ognahay Soomaalidu waa dad ku tiirsan in badan oo kamid ah dadka qurbaha u jooga bil walba biilka la dirayo noloshii dalka dadka jooga in badan oo kamid ah gacantaas iyo taageeradaas iyo caawimaada dibadda ayay helayaan Norway waxay kamid tahay qurba joogta Soomaalida 45 ku tilmaamtay ilaa ka badan noqon karta lacagihii ay dirayeen sidee hadda marka u diraan maadaama culaysadan iyo caqabadahan ay soo kordheen walaartii Soomaalidu waa dad creative farsamo waayaan waxaa hadda aad soo batay lacagtan online loo diro xawaaladahan qaabka online ah laakiin inta isticmaasho waxay u badan yihiin inta qaabkan digitalka dadka fahansan dad badan waxay jira lacagta wili cadaan u diro caqabad badan way jirtaa waa dareemaysa Soomaaliduna waa dad aad isugu tiirsan oo waxa laga yaabaa aniga haddii bishaan lacag soo gali weydo oo wax iska kay dhimaan inaan Maxamed lacag iga dir dhihi karo kalsoonidii tirada badnaa iyo caawintii tirada badnayd iyo isdeyntii inaan lacag kaasi deynsaday waxba badan baa isdhimayo marka qofku wuxuu noqonayaa inuu ku tashto jeebkiisa kow iyo inuu ku tashto documentigiisa oo haddaan maanta aniga lacag aan dirayo waa inay aniga magacayga ka baxdaan waagi hore waxaa laga yaabaa inaan magacayga dad lacag ugu diri jiray laakiin hadda ma diri karo anoo ka cabsanayo inay wax iga soo noqdaan laakiin saasoo tahay lacagta Soomaaliya loo diro isma dhimin si inteeda bay taagan tahay haddaysan ka kordhin marka waxaa jira farsamooyin tiro badan oo sharci ah ay Soomaalidu isticmaalaan welina waxa moodaa inay albaabka isma xiran albaabku wuxuu xirmaya laakiin ma wada xirmin laakiin maalinku xirmo oo laga yaabo wax dhici kara inuu sanadaha soo socdo gudaheeda haddaan xal helin
in waxa laga yaabaa in arrintaas saameyn weyn lagu yeelato xalka arrinta dhinac kale muhiim bay leedahay oo ah dowladda Soomaaliya ama Soomaaliya dalka la yiraahdo qofkan Soomaaliga ah ciqaabta tirada badan oo uu marayo markuu qurbaha joogo wax badan oo kamid ah wax xiriir la leeyahay dalkan uu ka yimid ee Soomaaliya la yiraahdo Soomaaliya hadda sanadii ugu dambeeyay nidaamka maaliyadeed kor buu u soo kacay aad buu wax ugu socdaa xawli dib u dhis badan baa lagu sameeyay nidaamkan maaliyadda transactionada caalamka EBN la yiraahdo sanadkii hadda la soo dhaafay gudihiisa lagu guuleystay haddii marka maalinka la gaaro in qofka Soomaaliga ku nool uu haysan karo bangi xisaab bangi oo magaciisa iyo identity-giisa uu sax yahay oo la hubiyo lagu kalsoon yahay caqabado badan oo Soomaaliya halkan haysta uu ka dhacaya marka annaga qalad aan galnay ka jaalid ahaan maahane waa qalad dalkeenii guud ahaan ku saabsan halkan anigu gacantayda kuma jira xaggana waxa muddo wax badan waxaan uga baahanahay baaka waca oo caawina waan gartay marka la fiiriyo ganacsatada Soomaalida xawaaladaha kula dalka Norway waa sida xiriirka kala dhaxaya dawladda Norway ama ha noqoto hay'adihii ku shaqada lahaa arrimahan xawaaladaha ama ha noqoto guud ahaan nidaamka maaliyadda iyo cid kastoo markaa ku shaqalaya dawladda ku jirta waddanka Norway mise Soomaalidu waxay kaliya xiriir la yeeshaan markii ayaga la soo eriyado su'aalo iyo wax marka ay yimaadaan mise xiriir joogta oo fiican oo wanaagsan oo ay dhiseen baa jira oo ay dawladda la leeyihiin walaa rusaashaas wax jiraan in la weydiiyo ganacsatada laftirkooda laakiin inta aanu ka warqabo waxay tahay in xiriir fiican uu ka dhaxeeyo xawaalad walba waxa uu shaqeeyo qof qareen ah ama laba qareen ama saddex qareen oo sharci yaqaankaas oo qaabilsan inuu ilaaliyo in nidaamkan xawaalada aan si khaldan loo isticmaalin shaqadiisu waxay tahay inuu markasta xiriir la sameeyo adii dawladda ee ku shaqo lahaa nidaamka maaliyadda inuu update siiyo inuu u gudbiyo dokumentiyada u baahdaan marka guud ahaan sawir waxaad moodaa inuu xiriir ka dhaxeeyo baadiyay waa waajib qof kasta oo laysan xawaalada haysto waa inuu haystaa qof laba qof oo ka madax bannaan day to day shaqada xawaalada oo uu dabagal iyo ilaa ka hortag ku sameeyo marka si guud waxaad moodaa inuu xiriirku u fiican yahay laakiin waxa fiican lahayd su'aashaas qof xawaaleyda in la weydiiyo ma ogi meel ay xawaaleydu guddi ama urur ama komitee guddi ku samaysatay oo si official dawladda la tacaamushay laakiin waxaan ogahay intaan ka warqabo ka xawaalad ka business qof walba xiriir fiican buu dawladda leeyahay sababtoo ah hadduusan la leeyahinba ma shaqayn karo waxa laga yaabaa shaki yar oo soo galo hal shaki oo soo gala xawaalad ama hal qof oo lacag si qaldan u dirsaday ama shaki la soo galo ama kiis dambi soo galo inuu nidaamkii xawaaladooda dhan saameeyo marka aad bay taxaddar iyo dadaal u sameeyaan inta tabartooda in karaankooda waxaad qaybtii hore tiri oo su'aal kamid ah su'aalahan ku weydiiyay aad ku jawaabtay in caqabadahan aysan iminka bilaaban in muddo soo jiitamayeen kaliya Norway san ahayn Scandinavian ko dhan ay tahay ma la oran karaa marka caqabadaha inta muddada soo jiitamayeen hadda marba ka sii dambayso way sii adkaanayaan oo caqabadihii baa sii kordhaya ma la oran karaa labada dhinacba qaar kamid ahna way sii adkaadeen qaarna way fududaadeen waagii hore lacag kastoo Soomaaliya loo diraa shaki calaamad su'aal baa saarnaan jiray maadaama xilligaa Soomaaliya shabaabku ay aad ugu xooganaayeen koonfurta qaybo badan oo kamid ah shabaabku hayeen lacag walba loo diro Soomaaliya koonfurteeda ama meelaha shabaabku hayeen waxaa saarnaa calaamad laakiin markii dhulkii ayagii laga xoreeyay oo deegaano badan dawladda ay gacanta hadda ku hayso muqdisho kale lacagta loo diro hadda su'aal badan lama saarayo marka si guud waxaad moodaa nidaamka xawaaladaha laftirkooda in la baranayo markastoo la barto markastoo la darso markastoo ay hay'adaha ay fahmaanna shakigan tirada badan ee cabsida uu yaraanaya dhanka marka xoogaa waxaad moodaa ka fududaatay laakiin dhanka adkaatay waxa weeye markastoo kiis u dhaco kiis ku saabsan lacag dhaqid kiis ku saabsan maalgelin argagixiseed markii waxaa marka bilaabanaya shakiga marka waxaa adkaanayo sharciyada ku saabsan maaliyadda ee xawaaladu ay isticmaalaan ama qaybta ka yihiin way sii adkaanayaan laakiin dhan kalena xawaalada la sii fahmaya way sii fududaanaysaa waayahay dhinacaan marka laga eego qaybta horena aad sheegtay in kiisas ay jiri karaan qaladaad dhacay qaarkood la arkay taas ay shaki sii dhalin karto culaysaadka noocaasa markay dhacaan qaab sidee ay Soomaalidu uga falceliyaan marka laga soo tago inay garyaqaan qabsadeen marka laga soo tago inay wax ballan qaadan isbedel inay sameynayaan kiisaska aad maqasho kale markay dhacaan ma wax isleedahay gabi ahaanba qatar buu gelin karaa ganacsiga ma wax aad isdhihi kartid baa Soomaalidu xal u heli karaanba qof kasta oo xawaalad haysto maanta waa inuu haystaa laysinkana waxaa bixiya hay'adaha maaliyadda oo financial regulation ka shaqeeya
marka shuruudaha ku xiran laysinkaas haddii aad qaladkaa samaysid digniin baad helaysaa haddii qaladkaad kale aad samaysid qaladkaa kala weynaan karo qalad yar iyo qalad weyn laakiin marba hadduu qalad weyn noqdo waxay u badan tahay ama dhacdo marar badan in qofka lagala noqdo laysinka wayna dhacday aad bay u dhacday oo waxaad moodaa waagii hore dadka soomaalida lacagta diri karo ama laysinka xawaaladaha haysto aad bay u badnaayeen laakiin hadda aad bay usoo koobmayaan waxaana dad badan oo waagii hore xawaalad laysin helaa hadda lagala noqday qalad ay ayagu shakhsiyan sameeyeenna maahane waxaa laga yaaba inuu noqdo qalad cid ay ka iibiyeen ama ka kireeyeen inay nidaamkan isticmaalaan taas horta qofku markuu qalad sameeyo dee sharci baa ku qabanayo sharcigaas intuu kula gaaray noqonaysaa ama midda guud ee ku saabsan maxay soomaalidu sameeyaan soomaalidu aad bay ugu doodeen muhiimaddu u leeyahay xawaaladda oo lacagta 70 milyan la diraya cid baa loo diraa wayna fahamsan yihiin baarlamaanka oo kale markii haddii mar qoobkan lagu soo qaatay dadka difaacayay soomaali ma ahayna soomaali dad kristaan aqoon-yahane ahaayeen loo yaraa marka way u jeedaan muhiimadda uu u leeyahay soomaalida nidaamkan xawaaladda waxaan isleeyahay waa hore baa la xiri lahaa ama sharciyo adag oo u gaara lagu soo rogi lahaa si looga baxsaa la leeyahay ayadoo soomaaliya ay tahay waddan dee waddamada ugu faqirsan adduunka ka mid ah waddan dad badan oo jooga ay dibadda ku xiran yihiin marka annagu intaa tabarteena waa dadaali karnaa laakiin qofku hadduu qalad galo marka asaga iyo dowladda u taallaa si u tacaamul lahaayeen waan gartay xiriir noocaha ka dhaxeeya xawaaladaha laftirkooda aan ognahay xawaaladuhu inay aad u badan yihiin inkastoo laysensyadii la qaato haddana xiriirka ka dhaxeeya intaad ka ogtahay waa intee buu la egyahay walahi su-aashaas xawaalada fiicnaan lahayd laakiin soomaalidu way tartamaan aad bay u tartamaan ganacsi way ku tartamaan wayna xogtii sirtana way kala qarsadaan inta badan intaan ognahay waxaa laga yaabaa dhib baan aanu marayo inaanan saaxiibkay oo xawaalad kale ka shaqeeyaan u sheegin oosan dhibtoo kale u marayo laakiin soomaalidu waa xogtana way kala qarsan haddana waa dad aad isugu xiran oo sheekaysto oo markay wax dhacaan waa aad baa loo maqlaa marka saan isleeyahay xiriir uu ka dhexeeya laakiin xiriirkaasi maahan xiriir formal ah oo ay wax wada qabsi waa mid ku dhisan tacaamul hoose iyo wada shaqayn saaxiibtinimo ku dhisan laakiin waxaa malaha u fiicnaan lahayd inay si inta aniga kiis lawyer iga bixi lahaa gaara maxamedna oga bixi lahayd hebelna oga bixi lahayd hebelkana oga bixi lahayd inaan hal lawyeroo guud qabsano lawyerka uu noo doodo lobbiga dadkan ka shaqeeyo saamaynta siyaasadeed leh aan lacag siino wayna awoodaan lacag badan bay soomaalidu haysataa marka waxaa muddaa qof walba marka asaga ay soo gaarto sumaca markaasuu qayliyaa laakiin inta ka horeysa waxaa muddaa marka kan ay kiis ku socdo way aaminsan yihiin waayahay ugu dambayntii intaad og tahay muxuu yahay qorshaha mustaqbalka xawaaladaha dalka Norway annagoo og caqabadahaas inay jiraan qayb ka mid waxaa sheegtay in dadka hadda teknolojiyadii ahaan dadku ay isticmaalaanba mararka qaar marka tan teknolojiyadda waxaa laga yaabaa inay sii ballaarato laakiin middan weli kaashka la diraya soomaalidu dadka waaweyn ee waalidiinta wax dira ay aad u isticmaalaan oo teknolojiyadda saasaan usii garanayn mustaqbalkeedu muxuu noqon karaa qorshahaad is leedahay waddankan Norway aad ku nooshahay mustaqbalkeedu ma ifaya ma mid su'aalo badan iyo tuhunku kusii badanaya qiyaas guud iyo fikir guud iyo cabir guud haddaa naga siisa mustaqbalka soomaalida halkan ila xawaalad dirista mar walba wuxuu ku xirnaanaya kan soomaaliya gaar ahaan sida nidaamka maaliyadda soomaaliya uu u kobco oo uuna xirina ula sameeyo nidaamka maaliyadda caalamka dhib badan aan maanta marayno saa hore u sheegay waxaana lagu ciqaabaya dalka aan ka nimid iyo nidaamkiisa maaliyadda aan dhisnayn laakiin dhanka war fiican baa maalmahan ka maqlaynaa EBN hadda waa la sameeyey central bankiga soomaaliya waxaa moodaa inuu hadda laysin caalami ah heli doono haddii marka centralka soomaaliya uu helo nidaamkaas caalamiga oo EBN-ka uu qayb ka noqdo waxaa furmi kara markaa bangiyada gaarka loo leeyahayna inay bangi ka dhex furtaan bangiga soomaaliya marka la sameeyo qofku asagoo oo isla joogo oo lacagtiisa u dirsan karo hooyadii iyo aabihii oo joogto muqdisho ama hargeysa ama meel kasta soomaaliya ka tirsan marka horta wax anagana u gaara maahan laakiin inta waxaad moodaa haddii aan iska ilaalino qaladaadka hore aan u samayn jirnay haddii aan iska ilaalino kiisaskaas hadda hore usoo sheegano lacagta la dhex marsado oo shakigooda wato oo qaybka shakiga haddaan u dhaqano dee sidii dad professional oo shaqadan iyo nidaamkan maaliyadeed aan waxyaabahan gacangeliska hoose iska dayno
waxaan u badannahay inaan nala aqbalo laakiin ogow annaga shaqaan abuurnaa xawaaladaha soomaalida xawaalad kaste waxaa u shaqeeya 20 qof 20ka qof waa 20 qof oo canshuur bixiyo oo Norwegia marka ninka xawaalada ka shaqeeya waa inuu fakaraa sidii ninka bangiga caadiga u shaqeeya sababtoo labadu waa nidaam maaliyadeed oo lacag lagu kala dirsado maxaa intaan ka bil hal qodob baan kugu dirayaa oo arrintan caqabadaha ku saabsan xawaaladaha waxaad marar badan maqasheen Norway dad intii sharcigiis baasaboorka Norway la siiyey ama sharcigan deganaanshaha la siiyey laga ceshtay waxyaabaha aadka looga tacjabo ka mid ah marka qofka kiiska la qiimeynayo inay xawaaladuhu yihiin waxyaabaha ugu badan ee la adeegsado tusaale ahaan waxaan sheegtay inaan afgooy ka imid ama aan ka imid awdhiigla ama marka inaan ka imid reerkayga marka degnaayeen aan qaxooti ahaa markana lagu soo dhibaateeyey aan soo qaxnay halkan nimid laakiin waxaa laga yaabaa inaan Norway joogay 17 sano 20 sano 25 sano 25 sanana aan Hargeysa ama Gaarisa ama Boosaaso aan lacag u diriyay hadhow markii kiisku uu imaado maxkamadda oo la yiraahdo ninkan Maxamed ama Saciida kiiskan inuu been buu noo sheegay bariga waddanka iska dhiibayo waa nin reer Hargeysa ama waa nin reer Gaarisa ama waa nin meeshuu ka yimid ka duwan ka yimid xawaaladuhu kiisas badan aan arkay qayb central waxay ka yihiin kiiska qofka loo isticmaalayo waana waxyaabaha keenayo in qofku aad u digtoonaado oo lacagta aan dirayo meeshaan u diray waa inaan caddeyn waa inaan u haystaa sharaxaad anoo ka cabsi qabo hadhow in kiis iiga imaado marka waxyaabaha Norway kaga duwantay ka mid ah wadamada kale Scandinavian-ka in qofku markuu meeshu lacag u dirsado la leeyahay sababta lacagta ugu dirtay maxay tahay yaa ka degan yaa ku joogo afgooyaad ka timid maxaa boos lacag ugu dirtay boosaad ka timid maxaad Gaarisa lacag ugu dirtay marka kiisaska oo unique ah in Norway kaga duwantay dalal kale Scandinavian marka waaba dhibaato markii dhinac laga fiiriyo dhibaato noqon kartaa su'aal ahaan haddii marka waddanka imaanaysa waxaad tiri aabahay u dhintay anigoo Saciid Maxamed Muuse waa waxaad tiri Maxamed Muuse qarax buu ku dhintay muqdisho ka dhacay laakiin markii lagu baaray waxa soo baxday in 20 sano ugu dambeeyay aad Maxamed Muuse qof la yiraahdo oo muqdisho ku nool lacag u direysay marka waxa leeyahay aabaha uu dhintay waan tiri waay marka qofka lacagta u direysay waa maxay waxyaabahana waxa keenayo maadaama qofka lacagta u diray la rejistareeyay oo la diiwaan loo sameeyay waxaa fudud in qofka la daba galo lacagta u diray iyo meesha joogaan marka kiisaska oo waxyaabaha xawaaladu ay waxa anagu shaqo ku leenahay maan Soomaalida laakiin waxyaabaha nidaamka maaliyadaha Norway qayb ka yihiin way iyo aad kaga mahadcelinaa Saciid Maxamuud Muuse oo qadka si toos ugu jiray isagoo jooga magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway run ahaantiina Saciid uu yahay nin aad iyo aad ugu xiran bulshada Soomaalida ee waddanka Norway kaga mahadcelinaa waqtigiisa qaaliga xagga aqoontiisana background-ka ay tahay businesska shaqadiisuna ay tahay shirkadda xisaabaadka ee Deloitte oo consultancy uu markaa ka yahay asaasihii warbaahinta North Media ee xagga warbaahinta dalkaasna kamida weliba warbaahinta Soomaalida ugu weyn ee waddanka Norway ahna sidoo kale madaxa hay'adda Somali ee Norwegian Strategic Partners ee magacooda loo soo gaabiyo SNSP Saciid Maxamuud run ahaantii aad iyo aad u mahadsantahay waan kaaga mahadcelinaa waqtigaaga qaaliga iyo weliba warbixintaadana siisay guud ahaan bahda barnaamijka maalmaha dunida waxaanu ku leenahay waad mahadsantahay aad waa mahadsantahay saaxiib adiga iyo tiimkaaga waa aad baan kaaga mahadcelin doonaa waana ku mahadsantahay warbixinta iyo jaaniska aan siisay inaan kula hadalno aad u weyn waana kaaga mahadcelinaynaa daawadaasha meelba caalamka joogaan intaynu ku kulmayna barnaamijkiisa xiga waa anigu Maxamed Saciid Saxaafi guud ahaan bahda barnaamijka oo idinkaga tagay meelbaad caalamka joogtaan sidaas iyo nabadgelyo